الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن بدن dadku wax isweydiiyaan qofkii waa tukanaya quraankii waa akhrinaya umradii buu aadaya sadaqadii buu bixinaya laakiin ma dareemahayo macaanka iyo raaxada ay cibaadadu leedahay asagoo wahsi ay hayso oo nafti qasbayo dhibsanahaya ayuu cibaadooyinkii la imaanaya maxaa keenay in la waayo waxa weeyaan macaansi lagu macaansado akhriska quraanka salaada cibaadooyinka kale qofku inuu ku macaansado maxaa keenay in la waayo dad badan agtooda in laga waayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaayagiisa iyo minaxiisa kuwa ugu waaweyn in qalbigaaga la dhiga raaxo iyo qabowsi uu ku qabowsanayo ku raaxaysanayo masjidka iyo salaada iyo sadaqada aad bixinaysid iyo khayrka nimco cadiima weeyaan oo aad iyo aad u weyn badan walidaalika nabigeena calayhi الصلاة والسلام wuxuu ku oranayay bilaal qum faarixna bis-salaah qum istaag bilaalow istaag oo salaada noogu raaxee aadaankeeda weey aadaanka noogu raaxee wuxuu nabigu u leeyahay sallallahu alayhi wa sallam markii uu adimahay bilaal nabiguna uu dhageysanayo alfaada uu ku dhawaaqayo oo tawxiidka ah ayaa nabiga qalbigiisu ku raaxaysanaya walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam salaatu leylka uu tukanaya aad buu u dheerayn jiray waxa qalbigiisu ku raaxaysanayo oo ku dalxiisaya waxay tahay wax ilowsiiyay daal iyo nooga kulli waxa ilowsiiyay waxa weeyaan qalbigiisa ayaa daawasho iyo dalxiis wuxuu ugu jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa macaasiga uu ku mucaansanayo iyo munaajaadka uu la munaajoonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala لذلك إلهي وحو ليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك إلهي سبحانه وتعالى أولي ماذا إيمان يعمل صالحا إلهي وحو النولين يا نرال طيبة أو ناكسن داد بدنو أعمال صالحة لي من وحويان نرش أي هيستان مادي أهان مركا لإيغو فخر يباهي يكون لي أو حياة طيبة الحياة الطيبة وحويان قلبي جاء إلهي إنه دقد الجناشه إيا قبو إيا الراحو أتكون راحي سنة يسيد عبادة دا وحا الدنيا دا أهنا آذان أوهن قلتاقة هاي كاسا وحي تاي حياة دا نبتاء أو طيبة دا أو ونكس ولذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه مركو لمن يبو بويي مركا سالي محال لبويي سا markaasuu yiri waxaan la ilmeynayaa oo la booyayaa soonkii aan soomi jiray oo meesha ka baxay iyo waxaan la booyayaa habeenkii oo wax badan aan taagnaan jiray oo meesha ka baxay cilmigi barashadiisii iyo xalaqaadkii cilmiga ah oo aan ka qayb qaadan jiray oo meesha ka baxay markuu dhimanayo wuxuu leeyahay qoomada iyo shalaygan qaba ma ahan in adduunyo la igu leeyahay ama deyn la igu leeyahay ma aha waxa meesha go'ahayo istaagay maalintii dheereed oo aan soomi jiray habeenkii qabowga ahaan salaatu leelka u taagnaan jiray cilmiga xalaqaadkiisa fariisiga aan fariisan jiro ka qayb gali jiray ayaa meesha ka baxay taasaan la booyaa buu jiray wuxuu yiri shaykhul islaam ibn taymiya inna fi dunya jannatan adduunyada dhexdeeda taala man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-aakhirah قف كان جنة أدونك جلين جنة آخرة مجلهاي جنة أدونك تالا والإيمان والعمل الصالح وإيمان يعمل صالح ويه قف كهلا إيمان يعمل صالح إلى هاي السجدرة وهلا يا سعادة يلي مانتي وهلا يا جنة الدنيا ذا أيو كل حجرة مركا قف كي جنة الدنيا ذا جلي وياه جنة آخرة مجلهاي قفك جنة الدنيا قالنا جنة آخرة أيو قاليا وأنا إيمانك يا عملك صالحة وحو النبي إنه عدي عليه الصلاة والسلام
camalku daacadu inay leedahay oo qofka dhaxal siinaysa macaan uu ka helayo qalbigiisa ka dareemayo wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان صدح arrimood qofkii qalbigiisa ka hela oo dareemo oo hela wuxuu ku gaarayaa sababtood wuxuu ku helayaa iimaanka macaankiisa ayuu qofkaasi helayaa midka koobaadi waxa weeyaan an yakuna Allahu wa rasuuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa inuu alla iyo rasuulka jecel yahay wax alla wixii ka soo haray waalidkiis ba Allah ka dhigo maalkiisa naftiisa wa inuu ka jecel yahay wax kaste alla iyo rasuul waa inuu ka jecel yahay midka labaadi waxa weeyaan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah qofka uu jeclaaday oo jacayl dhaba uu jeclaanayo waa inuunan u jeclaanin wax kale illa ilaahay dartii mooyaane qaraaba kama dhaxayso dhaqaale uu siiyay kama dhaxayaan mucaamalo ka dhaxayso ganacsi ma ay jirto deegaan iyo darisnimo gooniye kama dhaxayso qofkan wuxuu ku jeclaaday ilaahay dartii arrinkaasina wuxuu ku dhaxal siinayaa inaad iimaanka macaankiisa aad dareento arrinka saddexaadi waxa weeyaan wa an yakraha an yacuuda fi lkufr wa inuu naca oo karaahiyeysanaya inuu gaalnimo ku laabto bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay markuu ka badbaadiyey kadib كما يكره أن يلقى في النار أن يقذف في النار سيدو أنعهيو إن دب لغرد إن تلا سوقبتو دب هكشدا إن لغد نحتورو سيدو أنعهيو قف أقولون انشر انتاس قال يا مسلم بابا وإنه قفك مسلم كا آدي آد أنعاسي كدرا وحويا إنه قال لما كل لابتو إيمانك قال هو هايستو انتو إيمانك سيكبرو إنه فتنوبه oo gaalada uu raaco oo gaalnimo uu ku laabto arrinkaas waa inuu u naca sidii inuu dab lagu ridahayo kala sago u nacahay saddexda arrimood qofka waxay dhaxal siiyaan xalaawata iimaan iimaanka macaankiisa inuu helo asbaabaha qofku keeni karta inuu cibaadada ku raaxaysto ku macaansado kow mujaahadatu nafsi ala taa'ati illah إن قفكو نفط كل جهاد أو قصبه أو طاعة إلهي كو قصبه أرين كاسنا وحو أباهن يهي أدريك إيا قوان نفط إلا قصبه إلا مركز ضمبي أي نفط ينتهي براته أو ليلي قادته عبادتي سعادي يوجدته دقال بين نفط أباهن تها إلا لقلو إن لغو حبس مساجدك إن لغو حبس ميلها علمي قال لغو برنا هيو إن لغو حبس طاعة إلهي إنك كقيب قادته دقال يحوق يجهد يؤباهنته ولذلك إلهي وحل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحي إلهي النبي يسوي كل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أهلك خير كأمر صلاة دا أمر كنا صبر ويعرن كاسي وحو باهيا صبر يتشوكتين بو باهيا وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في الله مجاهد وحاءه ضبعه قفكي نفتي سكول جهاده طاعة إلهي قفكي نفتي سكول جهاده أو كقص بطاعة إلهي حمان ترك حكمي أو كربا قفك ساوحو ياه مجاهد كنبطه أهل العلم قال كم يدي وحي أورنشرين ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك كمن زول نفط إذا إنا انقصب أيوه أو طاعة إلهي أكحين أيوه أو خيرك كدر قنا أيوه أيدنا أي بويس أو أي ديديس إلى أمر كيدن بأي أقلاتي أيده قص ليس أنكحي ابن رجب نوحي الله واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك waxaad ogaataa naftaada waxay joogtaa booska daabadaadu ay joogto baqashaada ama faraskaaga ama dameerkaaga ama hashaada ama ratigaaga daabadaadu meeshay ka joogto ayay naftuna ka joogtaa in arafat minka aljaddat haday kaag dareento si dhab ah ina ula dhaqmaysid oo amraysid si dhab ah amarka u qaadanaysa wa in arafat minka alkasal haday ka aragta naftu wahsi iyo inaad aqbalaysid hadii culaysaanaya inaad u dabcinaysid haday aragto
طلبت منك حظوظها waxay ka dalbaysaa dheefteeda iyo shahawaadkeeda iyo waxay dalbaysaa ayay ka dalbaysaa mana dhargeyso haday naftu ka aragto go'aan la'aan oo jileec ay ka dareento ayada ku soo weeraraysa waxay ka dalbaysaa waxaan iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaan oo macaasida ah khayrkii oo dhan ajzi iyo wahsibe ka saaraysa waa markay ka aragto dabc laakiin haday ka aragto adayg iyo go'aan ay ka aragto khalaas way hogaansamaysaa arrinka labaadi waxa weeyaan oo kuugu kaalmeynaya cibaadada dareenkeeda iyo inaad ku macaansatid waxa weeyaan albu'du 'ani dhunub qofku dambiga iyo macaasida inuu ka dheeraado maxaa yeelay macaasidu waa xijaab waxay qofka ka xijaabaysaa macaansiga cibaadada iyo dhankeedii ka xijaabaysaa ولذلك أهل العلم waxay yiraahdeen ma daraba Allahu 'abdan bi'uqubatin a'zam من قسوة القلب إلهي عقوبة قفكم الرد كوين بدن قلبي قلال قلبي قلالي عقوبة كوين وقفكم على ما جرت إلهي قفكم عقوبة لما معه وإلهي خير درأ لما معه قلبي جسا إلهي قلتشيا عقوبة كوين مركو إلهي قفكم الردي وقلبي قلال كوين ما جرت محايا للنار محل أبورك لإذابة القلوب القاسية قلوبتا أنجك شيء أو قل شيء إن دلاليس أي نار تلو أبو قلبك إلهي رحمة ديس يا النحريس ديس يا خير يا طاعة إلهي كأنجي أو كقللي إن النار تدلاليسه قلبك أو جبتا يا لو أبو قلبنا وحى أجفك إلهي أكتيس وحى أجفك القلب القاسي قلبك قللا قلبك أنا وحى قلتشنا يا معاصي يا دنبك qofku markuu haduu macaasidi dhex dabaalanayo oo san ka toobad keenahayn qalbigiisu waa angagan yahay cibaadada macaankeeda ma dareemayo ولذلك يقول ابن القيم وكلما كثرت الذنوب وحويان اشتدت الوحشه مركز دنبغه او بتقفكو غليو waxa darnaanayo adkaanaya وحويان وحشدي iyo kala go'i asaga iyo ilaahay ay kala go'ayeen baasi adkaanay ابن تيمية وحول لي عليه رحمة الله إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهمه هذا عملك صالحا أو السمين يسد قلبك أتكويد إنه كرة حيسانيو وهو حويان قلبك وكو قبوبة يهدات كويدي عملك تهميسو عمل كاسي عمل صح معها محايا إلهي وشكور أدومديسو شيء صالح هدي لي مادان إلهي أقبل وكأمال مريا أمال مرينت إلهي أدونك وكأمال مرينا ينوحويان حلاوة معان إلهي قفك قلبك صدقها يا إلهي كأمال مرينا هدي مركا لوايا عملك أصغر الله الصمين أيوه وح قلبي تشليعة هدي لوايو أو دقنش قلبي قال لوايو أو قفك قلبك سو خشوعي وايو عمل كاسا وحكو تشيران ميل بالغا سوق قلي عمل نظيفة وإلهي أكتيس لغا أقبلي وننهين عمل كاتوميس أحد العلماء بسؤال لويديو وحاليني متى يفقد المرء لذة العبادة إذا وقع في المعصية أو فرغ منها قورمي قفكو وايا عبادة معان كذا ما مركو معاصيده كدعو ومركب معانك عبادة وايا مسوحو وايا مركو معاصيده انتو كدعو لما يستو كفاروقه أو نكتبت كينين بمعانك وايا مركز سوري يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية قفكو وحو وايا عبادة معان كذا انتو كدعي انتو كفاروقه منا معها مركو معاصي قوان صدا إنو قلو oo qalbigiisu go'aanka uu gaaro oo uu hamiyo ayuu macaanka cibaadada waaya uquubadu markaas ay ku bilaabanaysaa arinka afraadi waxa uu saddexaad waxa weeye oo cibaadada dareen inay ku yeelato kuugu kaalmeynaya tarku fuduli al-ta'ami wash-sharabi wal-kalam qofku inuu ka tago hadalka dheeraadka ah oo aan maslaxad ku jirin cunada ziyaadada ah cabitaanka ziyaadada ah hurdada ziyaadada ah qofku inuu ka tago arinka isaga qofka muuminka waxa uu haboon inuu ku gaabsado cunada iyo cabitaanka waxa cibaadada ilaahay uu ku gudanayo inta cibaadada ilaahay uu ku gudanayo inuu ku gaabsado ayaa u haboon
ولذلك إلهي وحول لي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عنا أو عبها نحد قد بننا محايا إلهي كوة حد قد بإلهي ما تشاء الله النبي وحول صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ابن آدم بني آدم مبوحيان وحك الشربضا ويل كالشربضا علوش ويل علوشا كالشربضا قف بني آدمي مبوحيه مركز النبي يقول بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ابن آدم وحاكفلا لقمضير أكلات واللقموين وقاضه يقمن صلبه ودبر كيس التوسينة هي سوء عبادة إلهي يقول حيوغيستو هدونا اللقمة داس قادا وسوء قدنا يا واسكو دعا هي عبادة مقودان كرو ابن آدم مركا وحا كفلا دور كان لقمة وقاضيه ودبر كيس وكتوسينة هي سوء عبادة إلهي يقول تاقنا هذا وقتو علول وحكا شربضان بني آدم بوحيان maxaa yeelay qofku markuu dhergo aqligiisu waa daciifaya oo fiirsada dadka dheregta joogtada dhergaa aqligoodu waa daciif maxaa aqligoodu daciif ku yahay dareenka qofka baahan ma dareemaan nin baa lagu yiri dadkaasi gaajo u baaba'ahaya baa laga sheegay markaas wuxuu yiri oo haday gaajo ka sii duruuf kasta ay soo martay xabad rootiyo iyo koob caano isku cunaan macbaan ma waayeen intaas qofku markuu dheregsan yahay wuxuu u qabaa dadkoo dhan inay dheregsan yihiin qofku markuu dhergo wax weey dareenkaas ku yaraanaya kibirka iyo qooqa ayaa ku ziyaadaya isla weyn ayaa ku ziyaadaya markaas wuxuu noqonayaa waxa ugu badan oo shar ah oo buuxiyay weelkaas caloosha uu noqonaya marka qofku inuu yareeyo cabitaankiisa iyo cunadiisa oo xaajadiisu intay kaga oofsanayso cibaado Ilaahay uu ku gudanayo inuu ku gaabsado مركز النبي وحيد عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي هذا يبقى قصب تاينه وحنا هيو صدح أو قيبي علوش قيبها كدقة عنيد قيبنا عبيتان قيبنا هؤرب نفسك أي نفسنا يسهؤرب ولذلك أهل العلم وحي هذين راحة القلب في قلة الآثام قلبك الراحة دي سوحي كشرتا دنبيغا oo la yareeyo qalbiga waa raaxaysanaya qofku markuu dambiga Ilaahay agtiisa uu ka galay uu yar yahay qalbigiisu waa raaxaysanaya waraahatul badni fi qillati at'am caloosha raaxadeedu waxa weeyaan yareynta la yareeyo cunada waraahatul lisan fi qillati alkalam arabka raaxaysigiisuna waa hadalkiisa oo laga yareeyo hadalka la yareynayo oo arabka la leeyahay ha laga yareeyo waa hadalka aan ajar iyo xasanaad midna lagaaga qorahay ama dambi lagaaga qorahayo iska jooji kaas midka xasanaadku ku soconayo lagaaga qorahayo haday tahay quraanka haday tahay dhikriga Ilaahay haday tahay al-amru bil ma'ruf haday tahay al-amru bis sadaqa midka isaga badi inta aawadi kartid maxaa yeelay xasanaad iyo ajar baa ku soconayo Ilaahay agtiisa arinka afraad oo cibaadada macaankeeda ku sahlayo ku keenaya waxa weeyaan an yastahdira al-'abdu anna ma yaqumu bihi min al-'ibadat la tadi'u wa la tafna in qofku soo xaadirsado oo uu dareemo oo uu qalbigiisa ugu sheekeeyo cibaadooyinkan uu gudanayo iyo salaadan iyo soonkan iyo sadaqadan iyo wanaagan iyo khayrkan uu sameeyo inaysan dayacmahayn oo aysan dhamaanahayn kama tafna kunuzu dunya wa amwaluha wa ladatuha sida adduunyada kaydkeedu u dhamaanayo oo maalkeedu u dhamaanayo oo macmacaankeedu u dhamaanayo acmaashan inaysan u dhamaanahayn waa ina qalbiga ku soo xaadirisa bal yajiduha al-'abdu fi yawmin ahwaja ma yakunu ilayhi wuxuu helaya oo ku xisaabtamaya inuu u baxsan doono maalin aan maal waxba tarahayn awlaadna aynan waxba tarahayn qaraabana aynan waxba tarahayn oo wax uu haysta aan la arag inuu maalinka u baxsado oo maalinka u baxsanayo oo wax yar oo khayri uunan ka dayacmahayn waa inuu qalbigiisa arinka ku soo xaadiriya maalin baa sugahay inta kale way dhamaanaya ninkee adduunyada ka tago maalkiisa qaatay
raggii maalqabeennada ahaa oo hebel ahaa oo annagoo xoolo haysanin oo aan waxba haysanin oo aan magac lahayn ayagu magac lahaa annagoo mansab iyo xiliyo midna aan haysanin ayagu mansab iyo madax ahaa ayagoo kuwaani aynan talinahayn ayagu talinahayay meelihii ay fariisan jireen weli waa la fariistaa raggay saaxiibada la ahaadeen waa la yaqaanaa hantidii ayagu ay maalgeliyeen oo ay dhiseen waa la harsadaa oo waa la joogaa wadooyinkii ay mari jireen waa la maraa geedihii ay ka talin jireen rag baa joogoo bedelo ka taliya raggaasi way tageen maracad oo karfana bay ka qaateen wax raacayna ma aanan arag nin miyaan aragna daarihiisu ay raaceen gawaaridiisu ay raacday ahalkiisa iyo caruurtiisu ay raaceen ma aanan arag inay dhinteen waa la maqlay waa la og yahay wax marka la isku yimaado warkooda soo qaadayana ma leh awalna waxay ahaayeen rag habeen iyo maalin arrimahooda laga sheekaynayo oo magacoodu suuqa ka shidan yahay oo ganacsigooda loogu imaanayo oo talinayo maamulaya ahaadeen halkaas ayay ku dhammaadeen meel dheerna maynan degin daris bayna leeyihiin camalkan aad samaynaysid markaad og tahay xaaladaasi markay ku soo martay inaad u baxsanaysid oo halkaa kula gelayo oo uu kula soo baxayo oo jidka siraadka aad ku malaysid oo maanta ugu baahi badan tahay oo kayd aad maashid uu ku noqonayo sidaa markaa qalbiga u soo xaadirisid cibaadadu ku macaananaysa camalkaasi wuu kula macaananaya waxaadna ku didaalaysaa inaad sugtid baa ku didaalaysa walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay yacmal min as-saalihaati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma qofkii sameeya camal saalixa asagoo mu'min ka baqi mahayo in laga nuqsaamiyo iyo in la dulmiyo midna ka baqi mahayo nuqsaan yar inay ku timaado ha ka baqin haddii ilaahay kuu aqbalay oo camalkaas lagu diiwaan geliyey weligiis kaa nuqsaami mahayo duugoobi mahayo khasaarina mahayo khasaaro dambe uga baqi maysid bangi ilaahay buu kugu dhacay ولذلك النبي قال وحي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان إيمان كددن كيس معان كيس وحاد الدميي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صدح قفكي هلا إيمان كمعان كيس وحاد الدميي قفك استقع من رضي بالله ربا قفك إلهي رب النماء وقرر على النقضة عدك لأن ربي معبود كدقا إلهي بكو كافتون cid kale u baahan yahay ma jirto ilaahay buu rabbinimo u qiray asagu rumaysan yahay inuu abuuray arsaaqayo cibaadadana asagu ku leeyahay ayuu rumaysan yahay wabil islaami diinan diinta islaamkana raalli buu islaamka wuxuu uga noqday diin ahaan diin kale ma ogola wax kale waqti ku lumin mahayo islaamku ilaashanaya waana kitaabka iyo sunnadaas siday u soo degeen wax laga bedeli kara aan la arag dad baa waxay u hanqaltaagayaan dhaqamada gaalada inay qaataan bal inay horumar ku gaaraan iimaanka macaankiisi baynan haysanin kuwa ilmahoodii gaaladii u geynahaya adduunyay la raadinayaan wixii ugu macaanaa oo iimaankii bay ka kaxaynayaan oo ay ka fogeynayaan markuu meeshii tago iskuulkii wuxuu la dhiganayaa gaalo waxa wax u dhigahaya gaalo hadalka lagu hadlayaa waa kufriyaad dalaalaad iyo baadi baa lagu hadlayaa asaguna habeenkii wuxuu isku dayayaa inuu yiraahdo ciise ilaah ma ahan ilaahay ba ilaah saakana waxa loo soo dhigay iskuulkii ciise waa ilaah ba loo soo dhigay ilmaha saqiirka inta leeg aabaha kaxeeyay oo geeyay muxuu ka kaxeeyay muxuu se u geeyay wuxuu ka kaxeeyay wax adduunyada aan suuqa laga soo iibsan karin ilaahay inuu ku siiyo mooyaan dhaqaale aan lagu heli karin waa iimaan waa amalkii saalix ahaa waa meeshii muslimiintu ay joogeen waa meeshii cibaadada iyo khayrku u yaalay ayuu ka kaxeeyay waa la haajiray wuxuu la raadiyay nolol adduunyo markaas ay hadhowta asaga iyo farabanaan baa soo laabanaya oo marada bitinayo gacanta taagayo oranahaya ilmihi waan ka soo tagay waxay soo raaca waan waay wiil baan keenado ayaan ba halka ku hayo waa carro wuu laabtay dib dambe waa u soo laaban diiday aniguna meeshii waxa weeyaan nolol dambe iyo joogis iimale uu soo laabanaya hadday badbaadaan kuwa aad dhashay oo aagaysi kuwa ay ku dhaleen meesha ma badbaadayaan luqadoodii waa bedelan tahay dhaqankoodii way bedelan yihiin deegaankoodii waa bedelan yahay dariskoodii waa bedelan yahay wixii ay ka caado yeesheen oo ay ku dhasheen oo ku koreen waxa ahayn ma aqbali karaan meesha ay joogaan wadan muslim ma aha waxa weeyaan ilmaha noocaas waalidkaas ilaahay hortiisa waa la weydiinaya waa la su'aalay
يان لغا كحين خيرك يا إيمانك يا معانك حلاوة إيمانك وليه يان لغا كحين الحياة الطيبة أي هايستان هذا إلهي يقانان سبحانه وتعالى أرنك الله باسد حادي وحويان وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول أقر النبي محمد إنه رسول الله إياه أقر على النقضة وحو إلهي رب النبي أقر على النقضة دين أهان مركل إلى هذا إسلام نمرالك يا بس نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول إلهي أصدر إنه يهي أي أقر على النقضة قفك كواسي قلبي سأي كل مان إيمانك معانك سأي الدم وإنه مركل كد دالنا سيدي إيمانك إنه أزيادي لها قرآن كآخر سكيسة استغفار تيا توبت كانك صدقة يا خير كإن الله بحنه أرك وين آدي أدو قد دالنا